maxaa ka jiro geerida la sheegay inuu geeriyooday abwaan geesi oo ka mid ah abwaanada da'da yar ee ku noolaa magaalada Nairobi ee waddanka Kenya si aan u xaqiijino geerida daqiiqado yar oo kooban ka hor warbaahinta iyo baraha bulshada qabsatay hadda waxaa isbitaalka abwaanka uu ku jiray ku sugan Cabdullaahi oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed oo ku noolaa magaalada Nairobi aadna abwaanka waayahan dambe isbitaalka kula sugnaa maalintii shalayna ka mid ahaa dadkii dhiiga u shubay markii dhaqaatiirtu ay sheegeen in abwaanka xaalad halis ah uu ku jiro Cabdullaahi marka hore soo dhawow waxa ku sugan tahay magaalada Nairobi isbitaalka abwaanka uu ku jira ayaad ku jirtay bal ka waran warka ah geerida in abwaan geesi uu geeriyooday ذكري هذا ما سنتهاي إنك ورالكين هاي إن الله وإنا راجعون إلى هون حريستو أبوان جيسي وهو نين دليل هذا جعليهن نيروبي ونهانتي حد مركان مطلي جريدي سنة هذا أول حي ما مي قدام بي وحكو جرس بتال كويا الله مقالة نيروبي جرهان سوتسي شلي هالكاس أول تغني هذا طبعا ولي تي نولشي سا مركاد فيرسي هذا وحنون سنة shalayna waxaa loo shubay dhiiga loo shubay oo wiilal isbitaalka imaadeen ayaa dhiig u shubeen dabcan marka aan isbitaalka qaybta uu ku jiray oo ah qaybta koomaha ama qaybta oo lagula tacaalayay meesha uu tagay quraana ku soo saarnay jirkiisa aad u bararsanaa waan laga dareemay xanuunka waxay inoo xaqiijinayay geerida ku timid abwaanka Allah u naxariisto wuxuu ka mid ahaa dhalinyarada aad ku isticmaasho baraha bulshada gaar ahaan aalada YouTube-ka ku soo bandhigi jiray riwaayadaha iyo sheekooyinka gaagaaban wuxuu ka mid ahaa dadka aad loogu jeclaa gudaha magaalada Nairobi ee waddanka Kenya bartiisa YouTube-kan ay ku xiran yihiin ilaa iyo in ka badan 200,000 Ilaahay u naxariisto qoyska iyo saaxiibadii uu ka baxayna samar iyo iimaan Allah ka siiyo fadlan aan u wada duceyno saaxiibka geeriyooday ee ka mid ahaa dhalinyarada da'da yar ee soo baxay waxaan ku yiri ilaahayow moodkaygu ilaawin wallahi ilaahay inuu si ilaawin waa ogaa laakiin ilaahu moodkaygu ilaawin baa ku yiri ilaahu baryanka ilaahayow moodkaygu ilaawin ilaahay andul ku bil aadankiisa adoon uu ilaawayo male qof walba uu la socdaa ilaahay xanuunku wuxuu ii tusay waa andul ku waa cimri qaadasho وتصالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال عاد باندين سلام يا ملول بشوكتان دون على ذا شرف لي كلام كركنها هاتو عدكي هذا سليدين إنك عدك محمد أنت كجدعي سعد كيسوية هاي يوقف كان عدك صنولين هذا سدادان وعجلد مياه عنتي وحمير كورك عنك عجلد عنا سدينني وحنون صدا صاحب يالو وحوي مقارنة أنتي عين كم مقنا يوتيوب كم مقنا حنون باين كم مقنا إسبتالن كشري وحوي حنون بدن باين تيسكو كي درمدين بعني المود بان كشري معادات كلام هذي كرينين والله حالة ضق بان كلام مركب مود بان أنتي اللي إسي ما مالين كرتان واشكيه مركز مود كبير كلي waxaan ku yiri ilaahayow